بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاستا فيتوريا سيمبر غايش، هاستا فيتوريا سيمبر غايش ميم باتشوكتين. فيفا لا ريفولوسيون أورميا. وعرى رير لندن إني سيفي عني دقيستان وحال الدنيا إن شريف سكين لغو مداهرة. شريف سكين وأن عالت كتالو مجرمة أو جانجستر. واحد دورتين ماله. odayaashii oday dhaqameedka ma haysto odayaashii oday dhaqameedka wuu xiray jirdil buu ku sameeyey meelay ku xiran yihiin wuxuu shariif sakiin soo aruursaday dadkuu wato waa kuwii maqaayadaha ceelgaabta khamaarka ku dheeli jiray iyo baydhabo iyo afgooyey ayuu wataa kuwii maqaayadaha khamaarka lahaa dalaalina marka waxaan rabaa shariif sakiin wuxuu doonayaa 50,000 oo hektar dhul beereed ah oo shabeellaha hoose ku yaalla ilaa dooy inuu ka iibsado niman turki ingiriis ah oo money lavandery ah marka waxaan u sheegayaa dhulka beeraleyda shabeellaha hoose ma aha dhul keliya iyo webiyo la iibsanayo deegaanada shabeellaha hoose waxaa ku nool 13 qabiil on xoolo dhaqato een oo reer gura een oo meesha ka dhaqaaqin oo dhulka wax ka beerta dhulkay wax ka beerta ilaahay ku rizqa ma hadad deegaan kale u gudbo ma hadad xuduudyo kala gobol kala galo markaad ka soo bilaabtid dooy kaliya ma ahani baay bakool misaga lagu beeraa ilaa dooy ma ilaa waxa timaada daafeed ilaa waxa timaada afgooye ilaa waxa timaada sharambood ilaa waxa timaada bariire ilaa waxa timaada kunyo barow sablaale iyo dajuuma iyo deegaanka baraawe waxaa timaadaa marko waxaa timaadaa shalambood iyo janaale iyo jilib iyo ilaa haddaad ku tagtid koonfur galbeed waxay leedahay runta hadii la sheegaya ilaa jubbaland waxay leedahay jamaame waxay leedahay jilib waxay leedahay dhulka ay degan yihiin qoladan mushunguliga la dhaho marka 3 million of population 3 million of population haddaan run sheegno waa dadka jareerta la dhaho lagu maysto 2,500,000 ne waxa weeyaan dadkan raxaweynta sheegto oo qolo walba ku jirto marka we are talking about 6.5 million waa digili mirifle ayaa maanta dulansan marka waxaan rabaa inaan idhaaho waxaanu arki jirnay quruxda beeraha afgooye ilaa bariire ilaa jambaluul ilaa jowhar hawadaay waxaa degan jareer waxaan fiirsan jirnay beeraha markaan gaariga ku socoto laamiga marayso golweyn marayso kismaayo ku socoto meel ku socoto waxaan arkaynay 1,000 more than 100,000 of hablo qurux badan oo garees xiran ama aliindi xiran oo madaxa ku wada mooski shirkadii danadaay ee Somali Fruit shacabka shabeellaha hoose subaxii wuxuu u kalahaa inuu dhulka beero wuxuu dhididkii iyo xooggii iyo qoraxda u taagan yahay iyo webiga biyo ka arooriyay iyo kanaal faagay iyo beero faagay iyo gacan ku faagay iyo tractor jil say Soomaali u khoodo wax cunaan marka waxa rabaa inaan weydiiyo there were 3 million people shabeellaha hoose dhulka ka shaqaysan jiray beeraha ka shaqaysan jiray dhulkoodii maanta waa la haystaa hawiya haysto habar gidir haysto qolo walba haysto war ilaah baa nigu dhaariyey shariif sakiin aabihii ummadda isku sheegay koonfur galbeed inanta koonfur galbeed u dhalatay raxaweyn ah ama biimaal ah ama jareer ah ama wax walba ah ama galadii ama wax walba ah maanta dhulkoodii waa laga barkiciyey shariif sakiin ma isweydiiyey inantiisa in xerooyinka muqdisho lagu kufsanayay 17 jirka uu mas-uuliyadda u qaaday ma isweydiiyey waa maya waxaan kaloo ni weydiinayaa shariif sakiin ilaah baa nigu dhaariyey ii soo sheega hadda aragteen shariif sakiin weligii ma dhisay iskool ay ubadka yar wax ku bartaan maya weligii ma u dhisay agoomada iskuul waa maya weligii ma dhisay dugsi lagu dhiso cariish oo ubadka wax lagu baro waa maya shariif sakiin weligii dalka isbitaal ma ka dhisay koonfur galbeed waa maya شرف سكين وحكو جرا تبتي سياد برا
wuxuu soo daadguraynayaa habar gidir uu rabaa inuu ku beero baraawe iyo uu leeyahay waxaan heshiisiinayaa laba qoomiyado waxaan heshiisiinayaa habar gidir iyo biimaan habar gidir iyo biimaan isku degaan maaha waa mooryaan dadka rabta inay boorto shariif sakiin wuxuu iloobsan yahay meesha waxaa dego 13 qolo oo qoomiye ah degan meesha ku nool oo weligood qori qaadan weligood dagaalamay shariif sakiin marka waa mujrim ani shariif sakiin wuxuu ila dhigmaa morgan oo ummad laayay ummad xasuuqay ee ku kambeyn gareynayo markuu dagaalamayo oranayo galeyda iyo masigada ay raxweel eelay leeyihiin ayaan cunaynaa ku dagaal tagaynaa wax isma dhaama maanta wuxuu ku dagaal tagayaa uu hawiye ku soo aruursado habar gidir iyo qolo walba dhulka ugu beerayaa inuu lacag yar ka aruursado shariif sakiin iyo morgan waa mid kanna waa morgan kanna waa sakiintii morgan ee raxweel raba inuu madaxa ka xiro marka waxaan leeyahay walaalayaalo waxaan la hadlayaa koonfur galbeed meel baad joogtiin qaqaan been ma sheegin waxa maanta booyeysay waa hablihiin waxa maanta wadooyinka iyo ilaa raas xaseer ilaa raas kambooni ku tuugsanayo waa ummadiini waxa maanta villa baydhabo hoosteeda jiifo asagana villa baydhabo waxa maanta villa soomaaliya hoosteeda jiifo waa raxweyn waxa maanta indhihii dowladda iyo baarlamaanka hoostooda jiifo bulsho jiifo waa raxweyn oo la kufsanayo oo qof u hadleen inanta raxweyn jidkay ku dhashaa waxay dhashaa ilmo qof oo la garanayn agoomo weeyaan aabba ma laho hooyadii aweed ma laho ciyaalka waxay aadeen inay koolla cabaan ciyaalka jidka ku daadsan haddaa aragtid waa digili mirifle anigu waxaan ka hadlooyaa populationka digili mirifle xuduudkooda min baybakool ilaa waxaa weeye 4 kun deegaankayga shabeellaha hoose dheh jasiiro dheh meel walba dheh maxay ku dhacday marka dadkani xajmigaan leh awooddaa leh maanta waa ujeedin ra-iisul wasaare oromaa soo baxay dee dadkiiyaa shaqaysto dadkiiyaa wax iska dhiciyay oromo way jaahiday wax walba ra-iisul wasaaraha etoobiya maanta waa oromo siday ku dhacday in lagu maaweeliyo 4 oday oo dikrin jiray ama masaakiin oo maganaalaay ah in la yidhaaha baarlamaankaan lii dhiibayaa bis 4.5 haddii laga hadlayo waxa 4 waa digili mirifle walaa hawiye waa 5 walaa habargidir hawiye qolada rabtid waa 5 digili mirifle waa 13 qowmiyood jareerweyne ku jiro waxa ku jiro waa 6.5 milyan Soomaali haddii been la sheegay waxaana ku xigo midhibaan oo meel walba dego waqooyi dego mudug dego meel walba dego marka run iskuma sheegay tirkoob ma jiro haddana waxaa la doonayaa 50 hektar dadka ay ku nool yihiin oo beerahoodii ay addoomo ka yihiin ka shaqeeyaan oo habar gidir iyo hawiye qaad in la gato ma isweydiin shariif sakiin taraktara la keenay wax walba la keenay dagan gacan ku shaqeeyaan shirkad baa imaanayso dhulkii qaadanayso dadka halkii aadayaan isma weydiin marka waxaan leeyahay koonfur galbeed waan ila hadlayaa واجب ويان شريف سكين اللي سكعي والدجال وافمنشار ونجس وسقجان ووحول إنا لسقنا آخبدي آخر ما وإنا ندوينا كدعوينا وإن جيل لقيا وإن لهم الظاهرة هذا لندن أود بالليدين أفبد ليدين ميديا ليدين وحل ليدين لويرو وحل ليدين وحول بو محكمتها هذا نكا دعوية هافتلا فيكتوريا سبر خاشوان السلامية شريف سكين نجا عليه we are 2018 ومالنتي شغالة dadkii shaqeyn jiray beeraha fali jiray wuxuu ka dhigay masaakiin dadkii xerooyinkii ku barkacsan yihiin meel baa dhibaato ka haysto inta kale la rabaa in la dhameeyo mashaariic baa baraawe laga wadaa baraawe degmada waxaa loo dhiibayo abgaali habar gidir afgooya sidoo kale abgaali mursadii habar gidir marka waxaa la leeyahay habar gidir iyo biimaala la heshiisiinaya shaqay ku leeyihiin male dadkan runtaan soo noqon dhibtana haysato waa shacabka koonfur galbeed aan la hadlayaa waxaan la hadlayaa guddoomiyaha wakiilka yurub ee koonfur galbeed cali baaba dadka guryaha ka soo bixi gawaari ijaara banaanbax weyn muujiya koonfur galbeed xildhibaanada joogana waxaan leeyahay is-abaabula xamse iyo ka hadla arrinkan baarlamaanka oga hadla dhulkaa dadka beeraha la qaadanaya barakacyaalaha hadda la dejinaya kuwa kalena waa la barakicinaya war halkee aadayaan dadka haastala victoria sempre qaqaashi mac salaama